habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heesa waxa u dooron xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay inay kordhisay howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab madaxweynaha koonfur galbeed oo la kulmay hay'adaha amniga gobolka Bakool faahfaahin laga helay dhimasho iyo dhaawac ka dhashay gaari ciidan oo rogmaday madaxweynaha Somaliland oo weerar afka ku qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya ururka al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah oo ku dagaalamay gobolka Hiiraan gabar xirneed dharka ragga oo gaalkacyo lagu soo bandhigay wakiilka cusub ee qaramada midoobay oo socdaalkiisa ugu horeeyay ku tagay Puntland dawladda Soomaaliya oo soo saartay amar ku socday hay'adaha caalamiga ee degan Muqdisho meedka gabar yar oo laga helay deegaan dhacad duleedka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud iyo Jubbaland oo ka jawaabtay warkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heesa kuwada ugu door karoon haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo guji gambaleelka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka markaan soo galino barteena YouTube-ka daawadayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay inay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa kordhiyay howlgallada ka dhanka al-shabaab deegaanada ay kaga sug yihiin gobolada dalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dawladda ayaa sheegay in al-shabaab uu waqtigoodii dhamaaday isla markaana ciidamada qalabka sida ay wadaan howlgallo looga saarayo guud ahaan dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa sidoo kale xusay in uu wali furan yahay cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u fidiyay dhalinyarada kamid ah al-shabaab waxaan ugu baaqay dhalinyarada ka tirsan al-shabaab inay isku soo dhiibaan ciidamada ammaanka ka hor inta aan dagaal lagu qaban hadalka wasiirka gaashaandhigga ayaa imaanaya iyadoo bilihii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta dowladda ay wadeen howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulan waxa uu la qaatay hay'adaha amniga ee gobolka Bakool madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Laftagareen ayaa shir gudoomiyay kulan ay isugu yimaadeen laamaha ammaanka gobolka Bakool kaas oo looga hadlayay xoojinta ammaanka degmooyinka gobolkaas waxaa shirka sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed saraakiil ka socotay ciidanka AMISOM intuu socday shirka waxaa la isku dhaafsaday fikrado kala duwan oo lagula dagaalamay al-shabaab kaas oo la doonayo in sida ugu dhow in al-shabaab looga saaro goobaha ay kaga sugan yihiin guud ahaan koonfur galbeed shirka intuu socday waxaa warbixino ku aadan ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad guutada 9aad laga dhageystay taliyaha guutada waxaana uu sheegay in ciidanka badankood ay qaadaan howlgallo lagula dagaalamayo ururka al-shabaab shirka oo ahaa mid inta badan looga hadlayay ammaanka gobolka Bakool ayaa la isku afgartay in laga shaqeeyo xoreynta gobolka Bakool oo degmooyin qaar ay gacanta kaga jiraan ururka al-shabaab faahfaahin ayaa laga helayaa gaari ciidan oo la sheegay in uu rogmaday kaas oo ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac gaari nooca dagaalka ee Soomaalidu taqaan Cabdibilaha oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Galmudug ayaa waxa uu ku rogmaday duleedka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud gaariga oo ka baxay magaalada Cadaado ayaa la sheegay in rogmashadiisu uu ku geeriyooday hal askari halka 7 kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay isbitaalka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud si loogu daaweeyo wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in askarta dhaawacantay ay ku jiraan kuwa xaaladooda caafimaad ay liidato sida ay sheegeen wariyaal ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa la sheegay in qaarkood burbur xoogan oo dhinaca lafaha ah uu soo gaaray askartii saarneed gaariga Cabdibilaha ah ee ka soo ambaxay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud mas'uuliyiinta magaalada Cadaado ayaa faahfaahin ka bixin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay rogmashada gaariga ciidan ee ka ambaxay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa si kulul uga hadlay go'aankii dowladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay dowladda Guinea xilli uu safar ku joogay dalkaas madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
waxa uu sheegay in markii ay tageen isaga iyo wafdigiisa dalka Kenya si weyn loo soo dhaweeyay isla markaana warka ka soo yaray dowladda federaalka ee Soomaaliya uu yahay mid la iska yiri sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliland aysan marnaba dul qaadan doonin qorshaha ay wado dowladda Soomaaliya isla markaana tallaabo kasta ay qaadayso wada xana ka soo yeedhay laba qodob oo daaranta wada godood waxa weeye iyaga oo iyaga naga waaciyo shisheeye ciidamada ayaa waxay maageen dowladda ilaa isagoo dadkii xoolahay oo sarkii dhaqaalaha boqortooyada kordo oo dadkeedu toban milyan yahay oo xubnaha xoolaha u sameeyay ayay maageen ku yiraahdeen sidee gurigaaga Soomaaliya ugu casuuta taasi waa go'aan ka garan geel koraakari iyaga iska celiyay iyaga intii iyaga ka badan yahay dagaal kale iyaga iska celiyay go'aanta labaad waa Soomaaliland waxay leeyihiin markay leeyihiin maxay casuutay Soomaaliland ma geydo maamuuska intaa in lagu soo dhaweeyo bilgaara ma aha maxay maamuuskaasi waxa la yaabaa ragga xukuumadda ka tirsan ee saad u tashaday marka hore go'aanta intaa waxa ku faa'iido dowladda aanu tagnay si weyn u soo dhaweysay waxaana guudoonsatay in qadiyadeena keento oo eeyuga madaxweyne alfara waa ku bilaabay hila waa ku haystaa afrikada galbeed arrintaa waxay leedahay ninka arrintaa galay waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland guud iyo horumar baan rajeynayaa loo boqol maayo fadlan kicmayno damarciina waa qoraysu cudurada lagu qorayay ka taatanahay taariikhda waa kala weynahay barito weyn gaar xisaan safar kala baxda caalamka kuwa badan baa xigi anu ciidamada soo dhacay al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah ayaa ku dagaalamay gobolka Hiiraan warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal qasaare geystay oo xubno ka tirsan al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah ku dhexmaray deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan dagaalka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay deegaan ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Halgan iyo Buulaburde ee gobolka Hiiraan waxa la sheegay in muddo u socday dagaalkaas warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii al-shabaab ay dadka xoolo dhaqatada ah ay weydiisteen xoolo iyo lacag fara badan asay dadka xoolo dhaqatada ah ay taasi ay ka soo horjeesteen kadibna uu dhex maray dagaal culus oo labada dhinac u dhaxeeyay dhinaca kale qaar kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay dileen 5 ka tirsan al-shabaab kadib dagaalkii xooganaa ee dhex maray hore ayaa waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ka dhacay dagaalo u dhaxeeyo al-shabaab iyo dad saraasaday oo la magac baxay Macuusley kuwaas oo sheegay in ay al-shabaab dhibaato kala kulmeen taliska booliiska magaalada Gaalkacyo ayaa soo bandhigay gabar xidhneed dharka ragga oo Gaalkacyo lagu soo bandhigay taliska booliiska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo bandhigay gabar xidhneed dharka ragga kuwaas oo dadka ula macaamili jirtay sida ragga oo kale sidoo kalena hubaysneed taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa sheegay in baaritaano dheeraad ah kadib gabadha oo lagu magacaabo Deeqa Cabdullaahi Aadan balse ku qaraaban jirtay Deeq la ogaaday inay tahay qof dumar ah balse iska dhigay ragga Deeqa Cabdullaahi Aadan ayaa xilligii la qabanayay waxa ay ku hubaysneed bastoolad waxayna sheegtay inay ku ilaalshan jirtay dukaan ay lahayd wakiilka cusub ee qaramada midoobay ayaa socdaalkiisa ugu horeeyay ku tagay Puntland wakiilka cusub ee xogyaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa safarkii ugu horeeyay ku tagay magaalada Garowe tan iyo markii loo magacaabay xilkaas wararka laga helay Garowe ayaa waxay sheegayaan in James Swan oo maalinta birta ah oo isniin ah uu tagay Garowe isla markaana uu kulan la qaadan doono madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulanka ayaa waxa ay uga hadli doonaan xoojinta wada shaqeynta Puntland iyo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya UNSOM waxa uu sidoo kale la kulmi doonaan qaar kamid ah golaha wasiirada Puntland waxa la sheegay in ay ka wada hadli doonaan xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Puntland oo aan wanaagsaneyn kadib markii bishii May sanadkan ay Puntland sheegtay in xiriirka u jirtay dowladda Soomaaliya wakiilka cusub ee xogyaha qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa horay ula kulmay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya dowladda ayaa soo saartay amar ku socda hay'adaha caalamiga ah ee degan Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa warqad u dirtay hay'adaha degan xeerada xalane ee caalamiga ah
sida qaramada midoobay, midowga Yurub, AMISOM, safaaradaha, shirkadaha duulimaadka iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah ee degan xerada Xalan ee Muqdisho. Warqadda ayaa lagu ogeysiiyey in magaca garoonka diyaaradaha uu isticmaalaan kan saxda ah ee loo bedelay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cadde, balse aysan u isticmaalin garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho. Warqadda oo ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadan looga leeyahay in lagu maamuuso madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan. Ugu dambeyn, xubnaha beesha caalamka ayaa loogu baaqay inay bedelaan u adeegsiga magaca garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha Muqdisho oo weli ku jira warqadaha rasmiga ah ee la isu diro una dhigan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde. meydka gabadh yar ayaa laga helay deegaan duleedka ka ah magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Wararka ka imaanaya deegaanka Gudun Labe oo dhaca duleedka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in xalay mid ka mid ah xaafadaha deegaankaas lagu arkay meydka gabadh ahaan lagu qiyaasay 10 jir taas oo la dilay. Wararku waxay sheegayaan in gabadha yar ee meydkeeda lagu arkay deegaankaas lagu magacaabi jiray Sagal Garaad Axmed, isla markaana meydka uu ka muuqday jirdil xooggan oo loo geystay dadka ku nool deegaanka Gudun Labe oo 30 kiiloomitir uga beegan koonfurta magaalada Cadaado ayaa saaka aad u hadalhayay dhacdadaas, waxaana ehelada gabadha yar ay sheegeen in ilaa hadda aysan garanayn cidda dishay gabadhooda iyo sababta loo dilay. Maamulka deegaanka Gudun Labe iyo taliska deegaankaas weli kama hadlin meydka gabadha yar ee xalay laga helay mid ka mid ah xaafadaha deegaankaas, waxaana dhacdadaas ay tahay mid ka cusub deegaankaas. ugu dambeyntiina dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warceliyay warqadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa jawaab ka bixiyay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo looga hadlay habraaca doorashooyinka Jubbaland oo la doonayay in Jubbaland u hoggaansanto. Warka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ka koobnaa 5 qodob, iyada oo la farayay maamulka Jubbaland inay raacaan habraaca wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee doorashada. maamulka Jubbaland ayaa jawaab ka bixiyay war-saxaafadeedkaas iyaga oo sheegay inay gabi ahaanba ay ka soo horjeedaan warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay maalmihii dambe cadeysatay wargelinta ay ku sameynayso dastuurka, maaliyadda, amniga dowlad goboleedyada gaar ahaan Jubbaland. Jubbaland ayaa war-saxaafadeedka ay soo saartay oo ka kooban 3 qodob sidoo kale ku sheegay in doorashada Jubbaland haatan xulista xubnaha baarlamaanka, doorashada madaxweynaha halka lagu qabanayo iyo amniga intaba ay mas'uul ka tahay Jubbaland. warkii oo daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.